shaqaalaha muruqmaalka ee ka shaqeeya dhismaha cusub ee dekada cusub ee magaalada Berbera ayaa maanta waxay sameeyeen banaanbax shaqaalahan oo isugu soo baxay jidadka waaweyn ee magaalada Berbera ayaa waxay cabasho la hortageen xafiiska maamulka gobolka Saaxil shaqaalahan ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen shirkadaha ay sheegeen inay u dhaxeeyaan iyaga iyo shirkadda qaadatay qandaraaska dekada cusub ee magaalada Berbera ee Shafa al-Nahda shaqaalahan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay ka cabanayeen shirkadahani balse wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha qoyska Soomaaliland iyo maamulka gobolka Saaxil oo 23 bisha Juun la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay xal waare ka gaadheen cabashada shaqaalahan warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Berbera ayaa waxay sheegeen in heshiiskii ay wada galeen wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha qoyska Soomaaliland maamulka gobolka Saaxil iyo shaqaalahani uu noqday mid aan dhaqan gelin waxaanu ka cabanaynaa haddaanu nahay shaqaalaha gobolka Saaxil ee ka shaqeeya dekada Berbera wasiiradu maalintii ballanqaad bay samaysay waxay tiri bisha dhamaadkeeda ayaa saxiixa laga soo qaadayaa shirkadda mushaharkiina wuxuu yahayna laga soo qaadayaa wixii dawladdu ay soo saxiixday tii kama hayno maanta markii aanu tagnay ballantii naloo qaaday way beenowday xafiiskii aanu tagnay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aanu u tagnay way beenowday inanka wuxuu nagula soo noqday halkii maalintii hore aanu ka tagnay gobolka maanta waxaanu leenahay haddaanu nahay dad muwaadin ah ninka muwaadinka cashuur baa laga qaadaa oo xoogiisa ay dawladdu cashuurta ku leedahay shirkadda cashuurta xoogid qofka shaqaalaha ee muwaadinka ee cashuurta laga qaado shirkadda iyadu doonaysa inay cashuurtiisii qaadato ay qofkii yoob ku siiso ma ogolaan anagu dalkaygu waxqabad buu u baahan yahay halkaa waxaan kaga cabanayaa shaqaalo badan oo muwaadiniin oo muruqmaal ah in dhiigooda iyo dhuuxoodii halkaa dekada cusub lagu shubtay markii hore waxaad noo soo dirtay wasiirad baa noo soo dirtay waxbay noomay qaban way naga tagtay soo waxaad gartay maaha mudan madaxweyne waxaan leeyahay meena yaro hindiyo ka yimid Banjaab iyo maxay iyo Delhi ayaa halkay ugu gumaysan anigoo reer Berbera wallahi ina ka dhacay billahi tallaahi baan qoori xoogayga la cuni maayo ama shanteeda iga qaban ama sharciga iga qaban adeeg ku sheegay mudan madaxweyne mar ma hoo laban baa waxaanu in badan ka hadlaynay inaanu helno xaqayaga iyo xuquuqdayada dad muwaadina baanu nahay waxaanu ognahay waxyaabo badan aan dawladdu ogeyn shirkaddan la leeyahay dekad hadalkayga madaxweyne si fiican u dhageyso naga soo gaar ciidaa dhiigayga shaqaysa nimanka muqaawilka nagu qaatay shirkadaha naga qabo madaxweyne dhallinyasha maanta shaqaalaha cadhaysan uu kula kaco Shafana waxaan aaminsanahay inay Soomaaliland oo dhan dhaleecaynayso markii koobaad ma aha markii labaad ma aha markii saddexaad ma aha cid kasta qosaysa waxaan u sheegaynaa wasiiradii ka hadashay meediyaha eena tiri 17 bisha ka hadhay isuga in haddana la leeyahay si suga wallahi inaan yeelin oo billahi inaan yeelin oo tallahi inaan yeelin laakiin hal mid baa naga go'an horta nabad weyn naga go'antay hadii cid wax yeelaynayna hal mas'alaanu ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa mudane madaxweyne iyo cid kasta qusayso inaan ku soo gaarno ma aanan jeclayn oo gobolka dad baad u igmatay isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska ee gobolka Saaxil oo isagana warbaahintu ay wax ka weydiisay arintani ayaa waxa uu sheegay inay ku guda jiraan dhamaystirka heshiiska ay la galeen shaqaalahani heshiiskii gacanta lagu haya waa laga yaabaa dib ugu dhici kara maalin 2 3 intaba dib ugu dhici kara laakiin arrintii gacanta lagu haya meel fiican bay noo maraysaa oo ah gebagebo in maaragtay arrintii aanu ay gebagabowdo oo heshiiskii ay soo bandhigaan marka waxa weeyaan arrintaasi arrin si fiican gacan way sugi kari waayeen oo way ka degdegeen runtii xoogaa degdeg ayaa jira oo arrintii ay ka soo yiri degdegeen oo inay anagana aaminaan maadaama anagu aanu heshiiska shirkadda la galay maadaama anagu aanu daba joogno maadaama ayna arkaan maalin walba inaanu u sii soconno oo aanu weydiinayno arrintii halka ay marayso ilaa inta qurana sugaan bay ma la hadalay saaka shaqaalaha si fiican baan ula hadalay waxaan ku leeyahay heshiiska anaga dhakada noo saara na suga shaqadiina iskaga noqdo marka waa intaas weey wax kale ma jirto arrintii gacanta lagu haya waxaan waqti dhowna inay soo baxdo go'aan laga gaaro yaan rajaynaa insha Allah waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas magaalada Berbera.